Noloshayda waxaan ugu noolaaday si khaldan, mana doonayo inay taasi kugu dhacdo adiga. Haddaad dhegaysato oo qaadato talooyinkan, waan kaa caawin karaa inaad beddesho mustaqbalkaaga. Dhammaanteen waan jecelnahay guusha, miyaynay ahayn? Haddaba waxay tahay inaan nafteena su'aalo: waa maxay guul marka annaga naloo eego? Waa maxay guul marka adiga laga eego? Laga yaabee inay tahay nolol qoys oo dhammaystiran, laga yaabee inay tahay guur wanaagsan, laga yaabee inay tahay inaad caan noqoto, laga yaabee inay tahay inaad codkar tahay, inaad caalamka ka tagto inaad ka tagto caalamka oo aad tagto meel ka wanaagsan meeshaad ka tagtay. Maxaad doonaysaa inaad xasuusato? Maxaad samayn kartaa kuwa kale si aad adduunka uga dhigto meel wanaagsan? Waa maxay hadafkaaga dhabta ah ee adduunkan? Dhammaantiin waynu dhimanaynaa, laakiin kuwa doorashada waa kuwa noolaanaya dhabtii. Haddaan halkaas raaxo jirin markaad kacdo aroortii, haddaad fikrad ku haysato caqligaaga, waxaa waajib ah inaad nolosha ka haysato intaa in ka badan. Ma garanaysaa waxay tahay inaad samayso? Waxaa habboon inaad ka istaagto wax walba oo aad qabanayso. Awooddaada waad ka bixi kartaa mugdiga, waxaadna u bixi kartaa nuurka. Qiimahaagu waa inaad weyn tahay. Qiimahaagu waa inuu ka badan yahay intaad u istaagayso noloshaada. Gudahaaga qofeed waa inaad caawin kartaa adduunka. Haddaad doonayso inaad xaqiijiso hadafkaaga, waxaa waajib ah noqoto mid si dhab ah u danaynaya hadafkaaga. Si cad waxaa jira maalmo halka aan nasanayno oo u baxayn nasasho wanaagsan, laakiin waxay markasta diiradda saaraan xaqiijinta fursadaha si sahlan. Haddaad weydiiso maxaad doonaysaan, oo kugu warramaya inay doonayaan inay ahaadaan kuwo faraxsan, laakiin si dhabta ah qofna ka hadli maayo tallaabada xigta. Taasoo ka cabiriyo waxyaabaha aasaaska u ah farxadda. Waxyaabaha aasaaska u ah farxaddu waa horumar. Daqiiqadaha yar ee soo socda waa inaad bisaa nolosha. Wax kasta oo adduunka ku aragtid, natiijada afkaartooda waa in xaggaaga ka yimaadaan. Dooro yool kuu dan ha ahaadee. Waxaan doonayaa inaad u sawirto si cad, ka yeel mid si fiican ugu cad caqligaaga, inaad ku noosho oo kale. Weligaa ha yeelin inaad nolosha ka dhacdo inaad qof kale fikrada ku socotid. Weligaa fikradaada kuu muuqato, taasaana ka muhiimsan intaad qofka tiisa ku socon lahayd. Qof kale wuu ku wadi karaa. Maanta haddaad istiraad heel meesha gaariga gaarayaan, raglayaale maanta meesha ku tegay adiga meesheeda waa gaadhay. Hadafkaaga waa intaad ahaa meeshii shalay kaaga tegay maanta waa joogtaa. Weligaa hadafkaaga yoolkaaga ha fadlan.